عليكم soo dhawaada asxaabta waa anigu Cabdullaahi Daacada iyo channelkeenu Hufana Technology. Intaas ka bacdi channelkan markasta waxaad kala soconaysaan insha Allah taala casharaan ku saabsan mobileska sida applicationada kala duwan ee lagu isticmaalo mobileka iyo dhammaan casharada kale ee faa'iidooyinka u leh mobileka. sidoo kale waxaanu dhawaan soo gudbinaynaa casharo kale haddaba channelkan waxaanu hore wax uga soo duubi jirnay weegiiba 2 casho, laakiin maanta waxaanu ni ballan qaadaynaa inaanu ku soo gudbin doono casharaanta isla daily ama maalin kasta. haddaba haddaynu intaa kaga gudubno maanta waxaynu wadaa cashar muhiim ah kaas oo ku saabsan WhatsApp ama siro ku jira WhatsApp. sirahan ku jira WhatsApp waxaa ka mid ah in aad qarsan kartid qof kuu muhiima ama uu naga dhaxeeyo haasaabo kale si aan lagaaga arkin WhatsApp-kiisa, ama qofkaas haddii aad doonaysid inaad xogtiisa aan cid kale aan la wadaagin si yar oo fudud ayaad u qarsan kartaa. sidoo kale groupiska kuu muhiimka ah ayaad iyagana qarsan kartaa. haddaba aynu tijaabino. ugu horreyn qofka aad doonaysid inaad qarisid ayaad dul tegaysaa. ka bacdi markaad dul tagtid sidaas kula dul taagan tahay farta sida ugu cadaaji cabaar. markaad aragtid in lagu select gareeyay saxdaas ay saarto ayaad taabanaysaa calaamadaas ku xigta 3 dhibcood. calaamada 3 dhibcood ku xigta ayaad taabanaysaa ee falaadha hoos u jeeda. waad aragtaa in la qariyo qofkii. calaamada archive-ka la yiraahdo ayaad ka qarin kartaa si yar oo fudud. haddaba hadhow sidee ayaad dib ugu soo celin kartaa markaad doonaysid inaad aragtid. isla halkaa ugu hooseysa ayuunbaad double click siinaysaa ama aad taabanaysaa. ka bacdi waa ka isla sidii oo kale ayaad uga soo furaysaa. sidii oo kale ayaad dibadda uga soo saari kartaa. haddaba waxaad isweydiinaysaa qofka haddii aad qarisay message-kiisuna ma kaa qarsoomaya? may kaa qarsoomi maayo. qofka haddii aad qarisay hadhow marka uu message-ka kuu soo diro si automatic isaga ayaa ka soo baxaya meesha aad ku qarisay. asxaabta casharkeenu maanta cashar yar oo fudud ayuu ahaa. soo tijaabiya insha Allah. subscribe-tana noogu qabtaa, kambaleelka furta, casharaanta la socda insha Allah taala. wixii tala iyo tusaale ahna commentiga noogu reeba. Assalaamu calaykum.